Bismillah. Assalaamu calaykum. Walaalahayow, mar walba waxaad aragtaan dadkeenii wadankii joogay iyagoo ka dacwoonaya dadkeena qurbaha jooga, iyagoo markaa oranaya taleefanada nagama qabtaan, block bayna saareen, taleefanadii bay naga bedesheen, iyo cajalad bay ku xirteen. Kuley cajalada waxay tahay ma garanaya aniga. Sidoo kale waxaa laga yaabaa in aragtaan qofka wadankii kasoo baxaya oo qurbaha imaanaya iyagoo kula dardaaramaya kiniinka qaraabagoysnimada ha cunin. Laakiin waxa xaqiiq ah oo aan idin cadaynayaa dadka qaraabagoyska ah inay yihiin dadka wadankii jooga. Sababtuna waxay tahay dadka qurbaha jooga waxa kaliya lasoo wacaa waqtiga loo baahan yahay lacag. Xataa qofkan soo wacaya, qofkan uu soo wacayo ma uu oga inuu isbitaal ku jiro, ma uu oga inuu dhibaataysan yahay, ma uu oga inuu murugaysan yahay, ma uu oga xaaladda uu ku sugan yahay, ma uu oga. Markuu dantiisa u sheegto isagoon weli caafimaadkiisa iyo wuxuu ku sugan yahay aan weydiinin, su-aasha ugu dambeysa oo qofka weydiinaya waxay tahay xawaaladee tagaa. Lacagtan inuu awoodo ma oga, qofkan inuu shaqeeyo iyo inuusan shaqeyn ma uu oga, inuu xanuunsan yahay war kama hayo qofkan wax weydiisanayo. Waxaan leeyahay dadka wadankii jooga, walaalayaalow, walaalnimada iyo wada dhalashadu ma waxay tahay keliya markaad lacag u baahataan inaad qofka xasuusataan? Maxaad qofkan u soo xiriirin weydeen oo caafimaadkiisa u ogaan weydeen oo wuxuu ku sugan yahay u ogaan weydeen oo xaaladda uu ku sugan yahay si xaqiiqi u ogaan weydeen? Xaqiiqatan waxay tahay cidda keliya ee xaaladaada ogaanaysa inay tahay aabbahaagii ku dhalay, hooyadaadii ku dhashay iyo walaalada kula dhashay keliya. Marka soo xaq maaha in dadka qurbaha jooga intaa keliya ay xooga saaraan, dadkan kalena ay iska dhiga tiraan, sababto ay tahay idinkaa sidaa sameeyey. Wada dhalashada iyo ehelnimadu keliya maaha markaad baahan tahay inaad qofkan la soo xiriirto, laakiin qofkan xaaladda uu ku sugan yahay xaqiiqada ah waa inaad mar walba ogaato oo la socoto. Oo hadday tala noqoto talana ka geysato, hadday deganaansho xataa qofka aad dejiso oo markuu murugaysan yahay qofka murugta ka baabi'iso oo la qaybsato oo aad ogaato de qofkan inuu yahay. Laakiin marka keliya aan wax u baahdan ku soo wacaya, taleefanka iga qabo markaana lacag soo dir, xataa lagu oran maayo lacagtii aad u dirtay waan helay, xataa lagu oran maayo. Dantu waxay qasbaysaa in qofka haddana dib u raadso tiro war lacagtii ma heshay. Dadkeena wadankii joogow dhaqanka noocaasa iska daaya. Waa dhaqan aad u fool xun, iska daaya. Qofkiinana mar walba ka warhaya, wax walba uu ku sugan yahay ka warhaya. Haddii kale ogaada qaraabagoyska runta uhu waa idinka. Taleefan in laydinka bedesho iyo in block laydin saaro iyo inaan taleefan laydinka qabanaa xaq baad u yeelateen. Assalaamu calaykum.